halkan waa qaarada TV war weyn ayaan idin hayaa daawadayaal madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay heshiiska la doonayo qaadka mar kale in looga fasaxo dowladda dalka Kenya halisna ku tilmaamay shargaree warkan oo gaarsiiya boqolaalka kun ee shacabka Soomaaliyeed si ay ula socdaan fariinta ka digitaanka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gaarsiiya adduunka si ay ula socdaan hagarta dowladda dalka Kenya iyo sidoo kale baaqa degdega uu soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hagaag aan ku bilaabo warbixinteena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in wax lagu xumaado ay tahay in dowladda dalka Kenya marka la ogolaado qaad inay u soo dhafiso Soomaaliya waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid aan wanaagsaneyn isla markaana uusan soo dhaweyneynin waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu baaqayo in tallaabadaasi uusan qaadin hadii aysan shacabka Soomaaliyeed ugu jirin faa'iido madaxweynihii sagaalaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalka Kenya ay kamid tahay dowladaha khaladeeya siyaasadda Soomaaliya isla markaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan laga hortago dhibaatada ay u maleegayso shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in dowladda dalka Kenya sababta loogu joojiyay Soomaaliya inay qaadka u soo dhoofiso ay tahay inay ka baxday ballamo badan ay la lahayd dowladii hore waxa uu sheegay in walaalkiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqayo in tallaabadaasi uu ka feejignaado isla markaana hagarta dowladda dalka Kenya iska ilaaliyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladda dalka Kenya dhankeeda ay kaliya faa'iido ka hesho inay u soo dhoofiso qaadka waxa uu sheegay in hadii qaadka loo ogolaanayo dowladda dalka Kenya uu soo jeedinayo in dhankeeda loo dhoofiyo kalluunka Soomaaliya si ay kalluumaysatada Soomaaliyeed suuq uga helaan dowladda dalka Kenya waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay xilligan u baahan yihiin dowlad awood leh isla markaana waxa uu sheegay in dowladda dalka Kenya ay kamid tahay dowladaha fargelinta qaawan ku haya siyaasadda Soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in mar walba loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay helaan dowlad caadil ah isla markaana ka feejigan hagar walba oo ay damacsan tahay dowladda dalka Kenya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dowladda dalka Kenya ka mamnuucay dalka sanadkii 2020 kadib markii lagu eedeeyay in ay soo fargelisay siyaasadda Soomaaliya taas oo ka carooday madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo ku qasabtay inuu dalka ka ceeriyo safiirkii dowladda Kenya u fadhiyay Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka feejignaadaan hagarta iyo sidoo kale dhibaatada dowladda dalka Kenya waxa uu sheegay in Kenya ay kamid tahay wadamada cadowga la Soomaaliya isla markaana aan ogoleen in dowladnimada Soomaaliya ay sar u qaado waxa uu sheegay in uu ka digayo in dowladda dalka Kenya mar kale dib loo soo celiyo xiriirkii ay la lahayd Soomaaliya loona ogolaado inay qaadka u soo dhoofiso Soomaaliya taas oo ku sheegay inay tahay mid aad loogu xumaado isagoo ka digay in la iska ilaaliyo hagardaamada dowladda dalka Kenya